Okay, assalamu alaikum guys. Kusoo dhawaada cashirkeeni aan ku balansaneen shaybaarka ka hadlay. Waxaan maanta ka hadlaynaa cashirkeeni koowaad ama introduction to the laboratory ama hordhaca shaybaarka. Waa maxay laboratory ama waa maxay shaybaar? Shaybaarka maxaa la dhahaa? Shaybaarka waa positionka ama makaanka lagu baaro wax walbo oo problem anaga noo geysana ama dhibaato nagu ah patientii ku meeshaas waxa loo yaqaan shaybaar oo qol mucayan ah oo lagu baaro wax walbo oo ilma aragta ah oo la rabo in dadka laga ogaado caafimaad xaaladooda caafimaad ee nabadgeliyo waxa loo yaqaan laboratory ama positionkaas waxa loo yaqaan shaybaar loo yaqaan afka Soomaaliga marka shaybaarkaas intuu ka shaqeeyaa qofka shaybaarista intuu ka shaqeeyaa shaybaarista wuxuu ka shaqeeyaa ima wuxuu ka shaqeyn karaa hospital laboratory ama wuxuu ka shaqeyn karaa research center laboratory ama wuxuu ka shaqeyn karaa research institute laboratory iyo waxa kale oo ka shaqeyn karaa laboratory ee leedahay government oo loo yaqaan central laboratory oo ka shaqeyn karaa marka laboratory imisaal loo qaybiyaa laboratory waxa loo qaybiyaa two category oo aad waaweyn loo qaybiyaa ama laba classification oo aad waaweyn loo qaybiyaa labada classification maxay kala yihiin according to the markii loo fiiriyo investigation ama baarista markii wax la baarayo waxa loo qaybiyaa manually iyo automatically loo qaybiyaa manually waxa kamid ah number 1 microscopical examination number 2 physical examination number 3 chemical examination number 4 serological examination ama automatically waxa loo qaybiyaa sida soo socoto number 1 biochemistry analyzer number 2 CBC machine number 3 hormonal assay number 4 ELISA machine iyo machine loo yaqaan jiro oo number 5 noo matalayo electrolysis machine kaasoo marmar separate ama asoo lagu dhex sameyn karo ELISA machine waxa kale jiro category labaad according to the department yani according to the department qaybaha ay leedahay markii la apply gareeyo according to department waxa loo qaybiyaa clinical pathology iyo clinical microbiology iyo clinical biochemistry clinical pathology waxa kamid ah number 1 hematology histopathology number 2 number 3 routine pathology number 4 waxa kamid ah pathology ama cytopathology according to the microbiology waxa loo qaybiyaa number 1 bacteriology number 2 virology number 3 mycology number 4 parasitology according to the biochemistry waxa loo qaybiyaa hormonal assay ama hormone investigation iyo biochemistry waxa kale oo loo qaybiyaa electrolyteska la baaro mineralska waxa kale oo kamid ah iyo serological examination departmentskan waxyaabaha oo keenay in la isugu daro group lagu qaybiyo waxa kalifay according to the materials la isticmaala ama specimens la baarayo keenay markii loo fiiriyo microbiology waa isku specimen intaas oo microbiology group la geliyay markii loo fiiriyo biochemistry inta biochemistry oo division la geeyay ama classification la isku order gareeyay intooda waxa la isticmaalaa serum examination la isticmaalaa ama qolada loo yaqaan pathology waa isku category waa hal la isticmaalaa marka waxyaabahan la baarayo la isticmaalayo oo la baarayo bini'aadamka laga baaro waxa loo yaqaan specimens loo yaqaan ama waxay dhahaan Soomaalida sample ay dhahaan sample waxa loo yaqaan wax walbo oo laga baaro from patient waxa loo yaqaan sample darma definition kiisa marka sample-ka waxa loo qaybiyaa laba loo qaybiyaa waxa loo qaybiyaa normal sample iyo waxa loo yaqaan culture sample normal sample number 1 waxa kamid ah urine blood number 2 number 3 waxa kamid ah sputum number 4 waxa kamid ah waxa loo yaqaan stool ama culture examination waxa loo qaybiyaa UTI oo laga soo gaabiyay urinary tract infection number 1 number 2 vaginal swab number 3 waxa kamid ah wound culture ama wound swab iyo blood culture inta waa la qaybiyaa marka inta hadda ka soo hadalnay oo laboratory ku saabsan oo divisionada u qaybeen ama classificationka u qaybeen dhamaantooda waxa soo dir dhaqaatirada soo diraan dhamaantooda iyagoo faahfaahsan oo sharxan oo kala baxsan by practical iyo by theory waxa uga hadlayna casharadena soo socoto waa maasantiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wixii faahfaahin dheeri ah waxa naga la soo xiriiri kartaan email-adeena idinkaga muuqdo shaashadaha WhatsApp number-keena YouTube channel-keena haddaad u baahan tahay video noocan oo kale in lagu duubo waxa kala soo xiriiri kartaa
Golding Media Production Company waa mahadsantihiin. Thank you.